adigan kashkashlaynay kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan oranayni ma kaftankii Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega managa isku maana maxaad kayga ku diidi no dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kuroodaanan kolkooda hooy kurbadii hayda sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaariya ma kayga niqatala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino adeerow axmed adeerow in yaroo ku idhaahdo cid kastoo is ogaata awooddeediyo xooggu aad inuu u sarreeyo afar qaadle bilowdo ayaraysa ilowda tii alle aragtaa allaaweyn ninkii aamina abuud leh ummad weliba ayaheeda inay garato iyadaa leh waan ognahay war Soomaaliland ayaheeda iyada ka tashanaysa cid ay kala tashanaysana ma laha warkaale goormuu qowdhan ku nafsaday ninka duulay kismaayo doonay waa inaad xamal martahay maskahada laga abaaroobi warorta waa hadashaane dad isdiiday dana kala wadaaleed maamaada ku dheeliniyo waxay ahayd ibni aadan iswaayi arrinaa kala geysi war hooy maamaha saas maha ku dheelin shabaakadii la xiri laasin waa la furaa war maahmaadii ku dheelana laamadii isjeelisad jooska dara leeri war yaa tanoo kala arkay warwarkayga dhex gelinina damaciya markii doonistiyo diiftu soo badato daacaduna yaraataa ummadi dan isulaysaa waana shay duruuriya inay taas ku dirirta maalow khayraaba afkaada ka soo dhadhamaayo kowdhe dariiqideed yaa la furay maa ii tiiri shanfaroodana shabdhaha waa soo shabiha shariiqeede sinileed ku dirtaa iyo dableed ku shidaa shaqada shoorkaana waa shibnoodhe shaydaan buulo shurugaa ku raac shar gudban shaydaan xijaaban eeda maamahdu sidaas maaha nin bashaar ha qaatay hubiyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waryaa Kalamaan gabyaagii indha geello Soomaalida u gaabnaa Indunuusiyana u dheeraa ayaa geeraar tiriyey war indha geello waa ganacsada been ha ka sheegin indha geello maxaa marna dheereeya marna gaabiyay allow yaa isgaraabsado kollay kalama guurtaan war indha geello maxaa siyaasadda faraha u geli war siyaasad ma gelina sheekada naga dhagaysta eediya gashigii dhaca gashanqaad wuxuu dhibo haddaan odayo gooyoon ka garaaba soo bixin misna aan guddoon iyo aan garsoorayaal helin amaan guurti loo dirin gartaas waayaha naqa war indha geello waxaa u jawaabay maxamuud jibcaalan in la yidhaa oo ganacsadii gabyaa wuxuu yahay aanan garanayn laakiin kollayba indha geella yaqaan gartii aan mariinkeed intay goori goor tahay talasami gobeed iyo hagarlii aan loo gelin armay gocasho reebtaa oo gadaalxumo abuurtaa war asagana nin gallayr la yidhaahdo ayaa ka dabageeyey war wax ma ogidiine gallayrkii gaashaamo ayuu dad kale ku dilay war ciidankii Itoobiya ee militariga ayaa gallayrka loo soo kiciyaa la yiri war anigu nin gallayr la yidhaahdo idin sheegay naga suga warka war cali qadiif gallayr miyaa Soomaaliland heshiiska uga baxday war waaba dad maran war dadkan kala socda maxay yihiin maandho berisamaadki sagaar galleer la yidhaa waxaa samay jirtay warshadeennii Soomaaliya wargeed ha kula go'o iga koobi wuxuu yidhi gafku wuu dhacaa ruuxii garaawshiyo ka baxshaa geliinbaa abid soo gunaanada ninka godob intuu galay geedkana ka giigee caanqina gafkiisana gadda loola wadi karo gabyaagow bal ii sheeg war gaaleydinga gorodooya goroonkiisan goomaroytan geegiisan bahaasan geeda kiyaali uni reedkiin goosani war waxaa la yidhi qof kastoo dhibka geysta misna aan ka garaabin gidaarkuu ku tagaa gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba lagu guurihaaye afarey gawaana lagu guurihaya
lagu guuraya warwar ma haysaana meelaha iska qaylinaysaana dawladdii mushaaraadkii facebook ay bixisay waana la yaabay tan dhacday war horta aniga mushaar la bixiyey waxaan ku ogaaday wariyaal la dhexaad ahaan jiray ayaa hadda dhinac u batay waxaan arkay dul yaroo dhahaya dawladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan odhan loo dhihi dul yar dulmi kama dhammaado dudunina ciidi kama dhammaato nimay anuu dunida fool buugga weligay ma geline adinku idiin furanaya saaxiibayaal waxay tuura barada gabay taageera soo tuuraan kaa qornay fafaniga ku soo gaaraya hariifa uquudkan laba nac isku xiji dheennoo si loo fahmo warnimayo war ma haysiine madaxweynaha Soomaaliya oo labadii maalmood ee la soo dhaafay qayladu ka daba yeeraysay waxaa la guddoonsiiyey bilada sanadlaha ah ee hogaaminta suuban ee loo yaqaano konkaraadiya war khudbada meela ka agriyaysan la haytan asharkuna kiin dhiibni haka baho basah ee iyo galad ee bilay haytay war madaxweynuhu warkaaga waxba kama fahminay dhigayso biladaas waxaa kaloo la guddoonsiiyey Abiy Ahmed iyo siyaasi Farweeke waxaana loo aqoonsaday saddexda hogaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kala xabadiga ma geline madaxweynaha yow farmaajo bilan naga guddoon labadii madaxweyne ee ka horeysay waa la yaabatii shalay dhigeen marka qaylidoodii ma bilada ay keentay markay xilka hayeen usbu waa qayli jire mugooda ha qaylshaan ama kii qaylin layn maxay namudayin warnimada waxaa la yidhi nin baa hadda ka hor ceel ku dhacay markaasuu geed allanoo dhinaciisa ku yaalla qabsaday markaasuu wuxuu yidhi allankow magan marka shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afhayeennadii dawladda iyo dadkii hadli jiray qof yidhaa waa la waayey marka dawladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesowe magan gashay jeesowe magan aa ka dhacday isaguna markaasuu inta ballaarsaday oo idaacad kasta wacay oo yidhi xildhibaanna shirayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dawladdu ku xayirtay jubbaland war lanka hebaabsaday gayladu hebaabsaday daahir amiin jeesow jilays mahayna gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan soronsor usiina ma eray shariifka raaligelinka biyoy oo balajaasna hadka dari oo balajaasna hadka biyo eri gefkusan gefi koonfur galbeed baa bakol shireedi ah koobi ki waan runtiisada maandhow salaad cali jeelaad ilowday wuxuu yidhi madaxweynayaashu sharciga ha raacaano warnimayow afhayeenkii hore maamul goboleedyada cabdullaahi sheekh xasan oo si dadban dawladda uu taageeraya oo aan u malaynay in gudoomiyaha gobolka cumar finish uu ka dhaxadlayo wuxuu yidhi xasan sheekh waagi uu xirayay dastuurka qodobka 20aad uu jiray hadduu shalay soo akhriyey anigu beriga u xiray ayaan akhriyey waana ka cafiyey maandhow cabdullaahi sheekh xasan maduulala ka kor hadlay cabdullaahi sheekh xasan may ba hilmaamay he asharkii xasan sheeksi may bana hay li joojiya banaan li jiifiya banaan war cabdullaahi xasan wuxuu yidhi jawaariya waagaasi waxaan weydiiyey dastuurkan dastuuran ahayn miyaa jira wuxuuna igu jawaabo yidhi waxyaabo kaloodan ogeyn baa jira waana waxa uu hadda jawaari ku buxuu yidhi cabdullaahi sheekh xasan warnimayo saddexdii madaxweyne ee jubbaland laba ka mid ah shir jaleed isla qabatay waxayna dhaheen sheekh shariif inuu kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiyo kismaayo way ku habbooneed bay yidhaahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweyne ayuu wuxuu doonayay inuu mid u markhaati furo war weligay ma arkin laba madaxweyne oo shir jiraad isla qabanayo hal magaalo isla joogo war anugu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bug tahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen ayagoo laba madaxweyne sheeganaya war aniga xidigaaba iga yaabshay wuxuu yidhi sheekh shariif waxaan u sheegayaa kismaayo wax doorasho ah kama dhicin mugga waa yaabe asiga soo madaxweyne ku noqda haddaan doorasho ka dhicin bari afaaraha hidig gareenka ba war ma haysiine madaxweyne farmaajo wuxuu maraykanka uga qayb galay kulan looga hadlay arrimaha diinta oo Trump uu shir gudoomiyey acuudu billaahi min ashaytaani rajiim ma Trump baa diin hogaamiyey oo ambara diimili ka arimay diimo badan yihiin dadko dhagaha aabudaa ka jiraan anu waxaan la yaabanahay diimaha Trump shir gudoomiyey diinta fircoonka kooka ba ogo Trump waxa loo yaabaa muku diinta iyo faragasto 29 sano kadib waa markii uu horeysay ee madaxweyne Soomaaliyeed la guddoonsiiyo bilad caalami ah taasoo uu ku mutaysto hogaamintiisa wanaagsan ra'iisul wasaare taada ku xigtay bilada maamul goboleedyada qaramada ma ku sii rabtay wariyaha ra'iisul wasaare khayre hawsha uu ka qabtay galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeed nima ka daraaso war awowgii la gub kismaayo ra'iisul wasaaraha waa laga taageeray war waxaa la yidhi dhan kastaba heshiis baan dabaqooyinka yaaliye khilaafaadka dhexdeenna ku dhammaysanaynaa afka looga dhawaaqo dibna loo dhugan
dhimanayninoo halka looga dhaqaaqo dadku waa ka dhergeen dab inay u dawadiya nabad ay ku dhaqnaato imisaa dhibsanayso wax u sii dhiman yihin warnimada waxaan idin weydiinayaa ma taqaaniin wasiirka raaligelinta iscafinta ee xukuumadda soomaaliya wiilisheenii aan ahayna afiki araaya warniga waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadoonka dawladda bas wadaha dawladdana kaawhe war wasiirad khadiijo waa gabadha madasha waryaa maantagaa nabadiidna marka waradada nabad ogol dadka dhina kara waryaa meeqa sanaa lagu hadlaaya meeqa san war sharcigii shirkada dan lahaa wada duqda ka leex duqda ka leex nabaddu waa ilaahay nafsiyo waryaa sharciga ilaas